وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن داوديال مeel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kalsan TV xaruntiisa magaalada London barnaamijka oo aalaaba uga hadalno arrimaha Soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaan maanta waxaan uga hadli doonaa arrimaha dalka Soomaaliya iyo waliba kuwa caalamka waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay arrimaha aan sida weyn u falanqeyn doono waxa ka mid noqon doona socdaalka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku maraya qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya oo hadda uu ku sugan yahay magaalada Cadaado halkaasi waxa ka soconaya shirar istaba joog ah oo ilaa iyo xalay halkaasi madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka degan deegaankaasi ay ku lahaayeen waxyaabihii ku soo kordhay shirarkaasi iyo waxyaabihii laga wada hadlayay barnaamijka waan ku falanqeyn doonaa magaalada Dhuusamareeb waxa sidoo kale ka soconaya qabanqaabo xoogan oo loogu jiro qaabkii loo soo dhaweyn lahaa madaxweynaha Soomaaliya waxa halkaasi ku qulqulaya wafuud kala duwan waxaana ka mid ah madaxda halkaasi gaaraya madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee qaybaha kala duwan kuwaasi oo doonaya inay goobjoog ka noqdaan qaabka loogu soo dhaweeyay madaxweynaha halkaasi iyo waliba shirka la doonayo in halkaasi ay ku wada yeeshaan ahlu sunna wal jamaa iyo galmudug state iyo isku biiritaankooda in badan ay arrimahaasi falanqeyn doona dhinaca caalamkana waxyaabaha aan sida weyn uga hadli doona hadalkii Donald Trump dhaliyay in qaar badan oo kamid ah wadamada caalamka ay si weyn uga caroodaan oo uu ku aflagaadeeyay wadamada Afrika iyo Haiti waan falanqeyn doona sidoo kale wadanka Masar waxa ciidamo ay geeyeen Eritrea saldhig ciidamada Imaaraadku halkaasi ay ku leeyihiin waxyaabo badan oo muran ah ayaa ka dhashay cilaaqaadka dawladaha Masar Suudaan iyo Itoobiya oo shaki weyn la gelinayo waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga waanta daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku falanqeyn doonaa injineer Axmed Abdidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ayaana maanta barnaamijka falanqeynaya balse marka hore waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo istaba joog ah waxa uu la leeyahay dadka degan deegaanka degmada Cadaado oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Galmudug State waxa halkaasi ku sugan madaxweynaha dawladda federaalka ah iyo waliba madaxweynaha Galmudug State oo si diiran loogu soo dhaweeyay halkaasi waxaan jeclahay bal marka ugu horeysa qaabkii habeenkii xalay wafdiga madaxweynaha markii ay soo gaareen magaalada Cadaado loogu soo dhaweeyay inaan idin soo gudbiyo marka hore soo dhaweynta madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay saaka Al-Sayid hore ka bilaabatay magaalada Cadaado ayaa caaway waxa soo gaaray magaalada Cadaado madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi heer qaran ah uu hogaaminayo soo dhaweyn ballaaran ayaa lagu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya afafka hore ee magaalada Cadaado iyo sidoo kale qaybaha hore ee madaxtooyada waxaana ugu dambeyn uu la hadlay warbaahinta asaguna bulshada uga mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen waqtiga dheerna ay ku sugayeen safarkiisa waxaan ku mahad celinayaa sida quruxda badan loo soo dhaweyseen weliba ilaa saaka u taagneedeen in aad sidaan oo kale iyo sida quruxda badan loo soo dhaweyseen oo aan hadda ka arkaynaa loo soo dhaweysaan aad iyo aad aan runtii ugu faraxsanahay aad iyo aad ka mahad celinayaa oo mahadsantihiin soo dhaweyntaan quruxda badan waxay tusaale u tahay ama ka turjumaysaa sida u wanaagsantihiin raacadada tihiin sida u wanaagsantihiin sida dawladdiina u jeceshihiin ka turjumaysaa soomaalinimadiina ka turjumaysaa wadaniyadiina ka turjumaysaa midnimada aad rabtaan iyo ka turjumaysaa waxaan ii sheegayaa
waxaan idiin sheegayaa markii ugu horraysaan cadaado imid maaha waa meeshii ugu horraysaan aan imaado gobollada dhexe waana filaaya soo dhawayntaan diiran aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa insha allah hadduu ilaa yidhaahdana waan idila hadlaynaa wax alla wixii aan isweydaarsan karno oo tala iyo tusaalena waan isweydaarsanaynaa waa mahadsantihiin walaalayaal ree cadaado waa mahadsantihiin adoo wanaagsan ma aha markii ugu horeysay maxamed cabdulaahi maxamed madaxweynaha Soomaaliya uu soo gaaro magaalada Cadaado tan iyo markii la doortay waxaana la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato odayaasha dhaqanka iyo maamulka Galmudug muddada uu ku sugan yahay gudaha magaalada Cadaado iyo deegaanada u dhow Libaan Axmed Cabdi Kalsan TV Cadaado aad ayuu u mahadsan yahay wariyeena magaalada Cadaado oo warbixintaasi inooga soo diray halkaasi waxaan jeclahay inaan markaan barnaamij ku soo dhaweeyo injineer Axmed Abdidoon oo ku sugan magaalada Sheffield injineer marka hore ku soo dhaweeyo barnaamijka qaabka madaxweynaha Cadaado loogu soo dhaweeyay iyo marka aad eegtay khudbadii halkaasi uu ka jeediyay maxaa ku baxay bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa maxamed waan ku salaamayaa waana ku mahad celinayaa adiga iyo tiimkaagaba marka xiga waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee guud ahaan gaar ahaan kuwa ku taxan mataqaana barnaamijka kan haddaan su-aashaada usoo noqdo horta safarka madaxweyne Farmaajo waa safar taariikhi ah waa safar aan noociisa ummadda Soomaaliyeed waayahan dambe arag waa safar uu ka soo bilaabay ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo haddana uu Cadaado ku joogo balse muhiimadda waxay soo jiitaan waxay ahayd markuu magaalada Gaalkacyo yimid safarka magac buu bixiyo wuxuu yiri safarka waa safarkii dib u heshiisiinta wuxuu aad iyo aad madaxweynuhu ugu noqnoqday sida uu doonayo in magaalada Gaalkacyo ay dib u midowdo ay hal magaalo u noqoto hal maamulo ay u hoos tagto runtii arrintaas anigu waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad u dhexaad u ah dib u heshiisiinta waa arrin waxaan isleeyahay mataqaanaa haddayba dhacdaba in hal maamul la isugu keeno magaalada Gaalkacyo aan dhihi karno Soomaalida dib u heshiisiinteedii way bilaabatay runtii dib u heshiisiinta oo madaxweynuhu ka hadlaya waxay tahay tanaasul waxay tahay sugarow waxay tahay garnaqsi waxay tahay inuu si hoose uu balxogta u ogaado maamul goboleedyadu ay ka qabaan ama dadku ay u arkayaan dowladda xamar ka dhisan oo aad iyo aad dadka uga fog maadaama nidaam federaali la abuuray maadaama maamullo ay hoosaad ay leeyihiin waa midda ugu muhiimsan waxay tahay madaxweynuhu bal inuu u kuurgalo qaabka maamul goboleedyadu ay u shaqaynayaan xog fara badanna uu ka helo shacabka cabashooyinkoodana dhegaysto federaaleyntu macnaheedu ma aha keliya in maamul goboleedyo uu la abuuro iyo dowlad dhexe balse federaaleyntu macnaheedu wuxuu yahay in maamul goboleedka laftiisa xukuumadda la daadajiyo degmooyinka la geeyo gobollada hoose la geeyo dadka tuulo jooga ilaa miyiga la dareemo ujeeddada federaalka horta waa inuu noocaas ahaadaa taas wey tan ay tahay madaxweynuhu uu u kuurgelayay runtiina waxaan aaminsanahay inuu safarka dhirka badan uu soo maray hadda uu ku joogo magaalada Cadaado caawana uu ku tagayo Dhuuso Mareeb sida ugu baqaalka ahna uu tagi doono Cabudwaaq uu tagi doono Balanballe uu tagi doono mataqaanaa Guriceel waxaan filayaa arrintaasu inay tahay wadda cusub oo waddadii saxda ahayd in dib u heshiisiintii lagu soo celiyey ayaan filayaa Maxamed waa tahay madaxweynuhu waxa uu soo maray deegaano aad u badan oo dhinaca Puntland sidoo kale qaybo badan oo wuxuu soo maray oo Galmudug ah Cadaado ayuu hadda ku sugan yahay oo galabta uu ka ama bixi doono saacad daqiiqado ka hor sida nala soo sheegay waxyaabaha jira oo sida weyn looga hadlayo waxaa kamid ah wada hadallada iyo deegaanka iyo waxgaradka oo madaxweynuhu la kulmay marka waxyaabaha ugu badan ee madaxweynaha iyo waxgaradka deegaanadaasi ay ka wada hadlayaan waa mid nooca maxaa lagu tilmaami karaa maxamedow horta wada hadallo adag baa jira haddaan si gaar ah uga hadlo hadda meesha uu joogo ee Cadaado
wadahadal aad iyo aad u adag baa ka socda sida aan maqlayo waxaan maqlayaa in reer Cadaado aysan ku qanacsanayn habka loo midaynayo maamulka ka dhisnaa Dhuusamareeb Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo maamulkii hore Galmudug qaabka dib u heshiisiinta loo sameeyay ha ahaato shirkii Nairobi lagu qabtay ha ahaado kii Djibouti lagu qabtay ha ahaado kii Muqdisho lagu qabtay ugu dambeyntii madaxtooyada lagu qabtay in ay dareen uu jira inaan laga qayb gelinin dadka reer Cadaadood dareen noocaas ayaa jira dareenkaas weeyeen waxa ay ka hadlayaan balse runtii haddaan anigu xoogaa yaroo falanqeyna ku daro aragtideena aan meesha ku beeriyo inta aad aragtida ku darin madaxweynaha iyo odayaasha iyo waxgaradka kulan ay yeesheen kulankan waxaa ka horeeyay mid ay hore u wada yeesheen madaxweynaha Galmudug iyo waxgaradka degmada Cadaado halkaasi muddo ayay ku kulansanaayeen wada hadallo badan ayaa socday marka wada hadalladii ugu dambeeyay intaan aragtida ku darin warbixinada aan ka helayno iyo xogta aan ka hayno maxay sheegaysaa maxamedow runtii wada hadallo aad u adag baa meesha la galay waxaad u malaysaa madaxweyne xaaf in maaragtay xujo hor taallo sidii uu isugu soo macno weyn horta ma samaynayso in la yidhaahdo Galmudug mataqaanaa Ahlu Sunna wal Jamaacana waxa la soo heshiiyey madaxweynihii iyo mataqaanaa Shaakir ayaa heshiiyey horta macno weyn ma samaynayso macno waxa samaynaya in maamulka iyo dadku ay maaragtay isku aragti noqdaan isku meelna wax loo wado taas horta waxay xigmad samaynaysaa wada hadalladan banaanka lagu soo galay waxay gogol xaar inay u noqdaan bay ahayd in gudaha laftooda baarlamaan baa jira Galmudug waxaa jira mataqaanaa nidaam dhisan baa jira dastuur Galmudug hore loo dhiso hore loo ansixiyaa jira in wixii dastuurkii la isku soo dabaalo oo golaha wasiirada hore u jiray Galmudug wixii lagu soo heshiiyay la hor dhigo dabeetana laga munaashaqoodo dabeetana wax la isku qarxiyo waxaad u malaysaa arrinta Cadaado ka taagan in xoogaa cabasha ay jirto oo arrintaas aysan weli soo afjarmin walow aan rajaynayna runtii inay soo afjaranto waana arrintaas arrinta hadda xataa oo madaxweyne Farmaajo uu farageliyey waxaan rajaynayaa anigu kulle wararka saan ku maqlayo in maaragtay ay wada hadalaas ay socon doonaan oo ayna weli la soo gunaanadin marka waxa mar kale ayaa dib loo sii ballan runtii horta waxaa la tegayaa Dhuusamareeb hadda dabaaldegii baa la samaynayaa ballaarinta maamulka Galmudug arrimaha hoosena waxaan anigu isleeyahay in hoos ahaan loo dhammayn doono arrimo hoose oo waa jiraan oo cabashooyin magaalada Cadaado waxay dareemayaan in aan shirka laga qayb gelin cudurka meesha yaalla horta ugu weyn waa intaa waxay dareemayaan in shirka laga qayb gelin in mataqaanaa ay Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo xaaf una ay arrintaan ku ekeeyeen aanay iyagu qayb ka qaadan ayay dareemayaan bas anigu waxaan isleeyahay waa arrin laga gudbi karo waa tahay hadda madaxweynaha iyo wafdigiisi waxa ay ku wajahan yihiin oo waliba laga yaabo hadda inay gaareen magaalada inkastoo wali aan loo soo sheegin magaalada Dhuusamareeb sidoo kale waxay tagi doonaan Caabudwaaq oo aan u malayn doono waliba sida qorsho ahaa inuu ku hormari doono dhanka Caabudwaaq marka la eego qaab ahaan qaabka hadda wafdiga madaxweynaha loo soo dhaweynayo iyo sida loogu diyaar garoobayo waxaa jirta in xubno badan oo mucaarad ka tirsanaa madaxdii maamul goboleedyada dhammaan ay hadda Dhuusamareeb tageen maamulkii gobolka Banaadir waxgaradkii dadkaas oo dhan maxaa ku kulminaya in halkaas ay madaxweynaha ku soo dhaweeyaan iyadoo marka hore Muqdisho la isla joogo horta maxamedow su'aasha aad iyo aad baad u baahantay su'aasha su'aal aad u fiican waa su'aal meesha ku jirta horta isu imaatinkan waxay leedahay dhowr waji bay leedahay waa midoo Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug baa lagu heshiisiinaya maamul midaysan oo Galmudug la yiraahdo oo Mudug iyo Galgaduud ka kooban ayaa horta meesha lagu caleema saaraya horta taas waxa weeye waa mid muhiimadeeda leh waxa la dhamaystirayaa barnaamijkii federaaleynta qaybtii Galmudug ayaa la soo afjaraya taas horta muhiimadeeda ay leedahay maamul goboleedyadana taasaa lagu casuumay dadkan kale ay leedahay mucaaradkana waxaan jira horta sideedaba
deegaanka dad badan oo ka soo jeeda ama mucaarad ha aadaan ama maxaafid ha ahaadaan oo siyaasadana ka dhex muuqda ama baarlamaanka aqalka sare ama aqalka hoose amaba dawladdaba ku jira dadkaasu maadaama deegaankan deegaankoodii yahay sidaad og tahayna maxamedow galmudug waxa weeye waa meel deegaan dad fara badan oo ka yimaada madaxweynaha laftiisa galmudug ka yimid prime ministerka galmudug ka yimid sidaad la socoto waa meel ilaa iyo dhowr iyo 10 reerood ay mataa ku wadaagaan xukuumadda marka waa taasoo tan keenaysa muhiimadda ay leedahay maadaama meel ay tahay maaragtay madaxda qaranka oo dhan ay ka wada yimaadeen waa meel muhiimadeeda leh midda kale socdaalkan madaxweynuhuna waa fursad dib u heshiisiinad weeye madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa dhaqanka wuxuu la kulmayaa maamul goboleedyada wuxuu la kulmayaa mataqaanaa kuwaan meesha waxaa kaloo jira iyadoo intaa barbar socota cabashooyin fara badan maxamedow dalku in muddaaba ma lahayn dawlad gaarta muu lahayn mataqaanaa intii kumeelgaarka lagu jiray iyo intii ka horreysaba inkastoo xasan sheekh iyo mataqaana u dhowr jeer tegey gobolkaas uuna u caal waayey oo mataqaanaa wax uu la iska dhisay aan sidii la rabay ay soo dhicin maanta fursada baa taalla fursadaas in laga laisla meel dhigo waxaa kaloo taalla maamul goboleedyada kala shaki badan baa jiray iyo xukuumadda waxaa jiray mataqaanaa cabashooyin badan baa jiray taas waxay hadda fursad u tahay in cabashooyinkaas meel la isugu soo xaaro in dalkan la istuso inuu hal dal yahay oo aan mataqaanaa aysan jirin maamul goboleed inta meel iska tahay wuxuu doono samayn kara in mataqaanaa wixii la muujiyo midnimo soomaaliyeed la muujiyo wax la wada leeyahay xataa haddii maamul galmudug iyo puntland oo kale haddana inaanay wax xuduudaha dadka kala celiya aanay jiri karaynin oo dalkaan de hal dal yahay oo qofka hadduu doonana galmudug ka shaqaysan karayo hadduu doonana puntland ka shaqaysan karayo hadduu doonana hirshabeelle ka shaqaysan karayo marka taas weeye tan hadda ay fursadda fiican ah oo aan isleeyahay halkaan duwalxaar bay u tahay waxaa laysu helayaa xadmidda kale jaanis maxamedow magaalada muqdisho xasanadeedaa badan xanteeda iyo wararkeeda hoosaa badan oo waxba waa la siyaasadeeyaa maanta banaankaa la isla tegey fursad waxay tahay madaxweynuhuna uu si yaroo mataqaanaa degan oo sidii hore aan la mid ahayn loo wada hadli karo meel lagu wada cashayn doono dabeetana laysugu imaan doono la wada quraacan doono fursad fiican laysu heli doono dadkuna israbkii soomaalinimada meeshaas loo budhigi doono madaxweynuhu wuxuu yidhi markuu gaalkacyo joogay gaalkacyo waxaan doonayaa uu yidhi inay noqoto hoygii laga bilaabo dib u heshiisiinta soomaaliya ay ka bilaabato waayo gaalkacyo muhiimad kaloo gooniya ayay soomaaliya o dhan ba u leedahay waa meel mataqaana udubdhexaad u ah dalka oo dhan marka waxaan isleeyahay fursadda tani waa fursad aan maamuladii hore iyo kuwii ka horreeyey mataqaanaa ilaa burburka aan soo marin madaxweynuhuna uu si fiican uga faa'iidaysan doono isagoo weliba dhaqankana dhegaysan doona bulshada rayidka ah iyo qaybaha kala duwanna si fiican mataqaan gaargaar inuu ula hadlo jaaris u heli doono oo aanu xamar ku heleen maxamed waa tahay marka ma waxaa la dhihi karaa marka laga soo tago qorshahan hadda ah in laga qayb gelayo munaasabadan ballaarinta galmudug iyo isku biiritaanka ahlusunna waljamaaca iyo galmudug in ay jiri karaan shirar iyo waxyaabo kale oo hoose oo laga wada hadlo oo maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay ka wada hadlaan sidoo kale xubnaha mucaaradka ah meesha jooga iyo madaxweynaha wafdigiisa ay ka wada hadlaan fursad way taallaa maxamedow mataqaanaa haddaan runta u fiirino waa fursad aan hadda ka hor aan meesha imaanin maamul goboleedyada laftoodu caqabada baa jiray waxaa jiray isfaham waa hore baa jiray saad la socotaba waa kuwii maamul goboleedyadu kismaayo ku samaystay hadda ka hor golo ku samaystay golahaas sababta loo sameeyey waxay cabasho ay qabaan bay ahayd oo ay dawladda dhexe ka qabaan marka madaxweynuhu sideedaba waa head of state waa ninka ugu sarreeya dalka u dhexeeya midda kale maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd xukuumadda hadday ahaan lahayd baarlamaanka labadiisa gole iyo hadday ahaan lahayd bulshada rayidkaba madaxweynuhu waa gundhiga weeye waa meesha laysugu imaanaya marka ugu dambaysa marka fursaddaani waa fursad aan mar walba la helin aan aaminsanahayna inay mataqaana maamul goboleedyada waxa cabashaada ay qabaan ay soo bandhigi doonaan haddii ilaahay bulshada rayidku ay sidoo kale soo bandhigi doonaan in mataqaanaa qaabka horta aan u soconnaa waana taas tan muhiimadda leh horta haddaan Soomaali nahay qaabka dib u heshiisiineed ee aan rabno
iyo qaabka federaalka aan u soconaa sidee noqon karaya in wax meel la isla dhigo dabeetana madaxweynuhu asagoo xalkii qaranka ee boorso ku wada inuu magaalada Muqdisho geeyo waa tahay waxyaabaha kale oo aad la isku weydiinayo waxaa ka mid ah mar haddii madaxweynihii Soomaaliya uu meesha tagayo siyaasiyiin iyo waxgarad iyo odayaal iyo madax maamul goboleed iyo intiba way tageen deegaan ahaanna deegaanka hadda lagu kulmayo ra'iisul wasaaraha waxaa loo eegaa markii la yiraahdo habka nidaamka 4.5 oo kale waa kursiga meesha kaga fadhiyay oo deegaan ahaan uu ka soo jeeday mana uusan ka qayb galin oo hadda shirar kale oo waddanka dawladdiisa ayuu la qorsheynaya inuu ka qayb galo oo ra'iisul wasaaraha maxaa sabab ah taas maxamed su'aal aad iyo aad u fiican weeye horta waxaa jirta madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu meel suba raacayaan badanaa matqan caadi maaha inay israacaanba madaxweyne prime ministerku shaqadii dawladda ayuu wadaa horta prime ministerku waa ninka shaqada dawladda wada waa ninka mataqaanaa laga sugayo hawlaha hadday ahaan lahayd xagga dawliga hadday ahaan lahayd xagga xiriirka dibadda hadday ahaan lahayd wax alla wixii ay dawladdu ku shaqaysato ninka laga sugayo waa prime minister madaxweynuhu waxa weeye waa ilaaliye waa dastuurku ilaalinaya korku waxaan ka ilaalinayaa wuu la socdaa wax meesha ay marayaan arrintaan laakiin hadda lagu gudayaa waa arrin madaxweynuhu gaar u leeyahay sababtoo oo ahna madaxweynuhu waxa federaalka oo dhan baa isaga mataqaanaa guddigu yaasaan ku sheegayba runtii marka muhiim maaha inuu prime ministerku meesha joogo gobolka waa runtaa waa gobolku ka soo jeeday laakiin madaxweynaha laftiisu waa gobolku ka soo jeeday taana ilaawin midda kale maxamedow socdaalkan madaxweynuhu waa socdaal muhiimado fara badan oo kala duwan leh socdaalkaani wuxuu muujinayaa oo kale in inta uu madaxweynuhu maray inuu yahay dhul nabad ah nabadii ayay muujinaysaa in nabadii soo noqotay in dhulkan Puntland iyo Galmudug iyo anagoo weliba rajaynaya mataqaanaa inuu hataa Hirshabeelle tegi doono magaalada Beledweyne uu tiri aad iyo aad ugu rajo weynahay waxay muujinaysaa dalku in maanta loo diyaar garayn karo doorashadii one man one vote aan kaba hor dhaco doorashadii one man one vote meel laga qorshan gelin karo ayuu waddanku maanta taagan yahay waxaana muuqata kooxihii nabadiidka dhulka dhul laga nadiifiyay inay tahay oo nabad ah oo madaxweynuhu uu dhulka ku marayo aanu diyaarad u maraynin halka waagii hore diyaaradda laga soo qaatay Muqdisho cadaadad lagu tagi jiray ama gaalkacyo ama Garowe ay taas u dhamaatay marka sawir cusub ayay caalamka tusaysaa annaga Soomaaliya haddaan nahay maxamedow caalamka ayaa wax nagala dhaxeeyaan arrinta Soomaaliya security council ka taala charter 7 baa lagu xukumaa Soomaaliya san la socotaba marka taas waxay marka international xageera ka eegto muhiimad gaar ah ayay sii leedahay waxa la arkayaa waddankii inuu dhabihii ka soo kabashada dagaalkii sokeeye iyo dagaalkii mataqaanaa dadka walaalaha ay ka dhex dhacay in laga soo kabanayo oo maanta loo gudbi karo heerkii development horumarinta madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in uu jidka gaalkacyo ilaa Guriceel uu laami sida loogu duulo oo ka dhigi doono oo saacad iyo bar loo socdo marka waxa jira heshiisyo fara badan oo saxay markuu Garowe jooga xataa heshiisyo fara badan iyo mataqaan meelo badan uu soo furay haddana meelo badan buu dhagax dhigaya hadday aan la cadaado hadday aan la dhuusamareeb san la socoto maxamedow waa in madaxtooyadii la dhisaa waa in la dhisaa meeshii lagu shiri lahaa dhuusamareeb ma ahayn magaalo u diyaarsan ilaa hadda caasimadii Galmudug inay noqoto inay mataqaanaa booska ay ku lahayd niqaabkeedii inay dib u hanato ma aha waxay u baahan tahay in dib loo dhiso in guriga baarlamaanka la dhiso in guriga madaxtooyada la dhiso in gurigii mataqaanaa golaha wasiirada hooyadoodii meesha laga sameeyo in hudheello cusub la waxeeyo in waxay u baahan tahay hawl aad u fara badan taas waxaan aaminsanahay dib u dhiska caasimadda Galmudug madaxweynuhuna inuu ka qaadan doono qayb aad u ballaaran maxamed waa tahay waxyaabaha sida ay sheegayaan xogta iyo dadka xiriirada kala duwan markii gudaha lala sameeyo maamul goboleedyada kale qaar badan oo kamida ah waxay soo jeedinayaan in dawladda la ballaariyo oo culayska laga qaado magaalada Muqdisho oo qaybo kale ay xarumo ku yeelato arrinta noocaas oo kale ah sidee ku suurta gali kartaa anigu horta arrintaas waxaan isleeyahay arrin hadda waqtigeedii uu taagan yahay inay islaahayn baan anigu kulli isleeyahay waana ku sababeynaya balse aan mid ku horeeyo horta socdaalkan madaxweynaha oo goboladan mataqaanaa kuwa dhexe iyo kuwa bariba uu ku tegey waxay kale calaamad u noqonaysaa loona diyaar garoobayaa
in maamul goboleedyada halkaa isugu yimid ay ka soo baxdo istaraatiijiyo cusub oo lagu horeyn lahaa Jubbaland iyo mataqaanaa koonfur galbeed looga horeyn lahaa kooxaha nabadiidka horta istaraatiijiyadaas in la helo ciidamadeedii la diyaar gareeyo qaab mataqaanaa wada jira loo wajaho lana xoreeyo dhulka mataqaanaa maanta ay gacanta ugu jira kooxaha nabadiidka ah iyo nolol diidka ahba ayaa wuxuu yahay dhulkii qaniga ahaa ee waddanka dhan ba quudin lahaa dhulkii waddanka dhan quudin lahaa ee noloshu ka soo bixi lahayd ayuu nimankaa gacanta ugu jiraa marka muhiimadda ugu weyn waxaan isleeyahay horta taas wey tan kale ah in magaalada muqdisho culayska laga qaado runtii haddii la saaro xoogga maantay isfahamkaa ka dhacay halkaan marka la isugu yimaado magaalada dhuusamareebeed waxaan aaminsanahay in laga soo saari kara istaraatiijiyo lagu xoreeyo gobolladaas hadii la xoreeyana dee culays hadda muqdisho gooni u haystaa hormaba jiraba waxa ugu weynaya waxa loo dhaqaaqaa waa dibudhiskii dibudhiskana meesha hadday amni noqoto internationalkuna qaybtooday ka qaadanayaan diaasbaradu qaybteeday ka qaadanaysaa dawladduna iyadaa waxaa laga rabaa inay wixii ay kala mataqaanaa miidaamiso ay hagto oy mataqaanaa ay barnaamijkii degsan oo qorshaysan oo qorshihii ay la timaado meesha keento axmed waa tahay injineer aada u mahadsan tahay dhinaca soomaaliya haddii intaasaan uga gudubno waxaan geli doonaa dhinaca caalamka iyo weliba waxyaabihii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay cilaaqaadka wadamada masar ethoobia sudan iyo eritrea ayaa waxa ay baryihii ugu dambeeyey ahayd mid si aad ah loo hadal hayo isla markaana inuu marba mar ka dambeeya sii xumaanayo arrintaasi halkay maraysaa hadda maxamedow horta gobolkan mar dhowr jeer horena waa ka soo hadalnay waxaa ka soo curartay oo dhashayba isxulufaysi cusub kooxdii masar iyo sacuudiga iyo imaaraadka hadda kahor xulufadana ahaa haddana mataqaanaa ku soo fidaya afrikada waqooyiga bari ee afrika ilaa iyo geeska afrika ayaa horta arrintaan daba socotaa waxaa dhacday asha dhaweeto in madaxweynaha turkiga uu tagay waddanka sudan waxaa dhacday inuu mataqaanaa jasiirad yar oo suwakin la yidhaahdo oo ah meel ay cusmaaniintii ugu talagaleen dadka xujayda ah iyo inay ku nastaan markay xajka u socdaan ama cimraysanayaan markay ka yimaadaana ay ku nastaan oo meel yaroo lagu raaxaysta ahayd ayuu dib turkigu u ballan qaaday inay dib u howlgeliyaan dekad ka dhisaan meel ganacsi ka dhigaan maqaamkeedii ay lahaan jirtay 100 sano ka hor ay dib ugu soo celiyaan arrintaasu waxay kicisay kooxdan afarta ah mataqaanaa sacuudiga iyo masaarida ay horboodayaan iyo imaaraadka carabta waxay culays saareen waddanka sudan iyo waddanka etoobiya kadib marka ay ciidamo masaariya lagu soo daadgureeyey waddanka eritrea oo saldhig military ayay imaaraadka ku leeyihiin arrintaasu dhiillay abuurtay waxaa kaloo masaaridu sameeyeen xadka ay la leeyihiin sudan lafteeda ciidamay keeneen ogoona hadda ka horba xuduudka waxaa jira inay isku haystaan masaarida iyo sudaantu dhul ay isku haysteen baa weligiiba jiray oo mataqaanaa halkaa khilaafaad yar baa jiray wixii baa lasoo cusboonaysiiyey iyagoo ka masaysan imaatinka uu mataqaanaa turkigu meeshaas yimid arrintaas waxay abuurtay xulufo cusub oo ah sudan iyo etoobiya inay isxulufaystaan in mataqaanaa etoobiyaanku ciidamadeeda xadka turkiga ay u raraan turkiga yaan dhina xadka eritrea laaliga ahaw in mataqaanaa sudaantu ay labada xadba ciidamo geyso xadka masaarida iyo xadka ay la leedahay eritrea laftiisa ay ciidamo u daabusho arrintaas xisad cusub bay kicisay waxaa jira prime ministerka ethiopia wuxuu rabay hadda inuu masar tago isniintii shalay ahayd arrintaas waa la baajiyey markii labaad weeye oo booqasho uu rabay inuu masar ku tago wada hadal laga sameeyo daamka mushkiladdu waxay tahay waa daamkan ay ethiopia ka dhisayso biyaha nailka ayaa horta arrinta la isku haystay ay masar isku haysteen arrinta inay xalliyaan bay rabeen waxaa dhacday in maxamedow ilaa hadda xal loola yahay balse xalay waxaa hadlay madaxweynaha masar president sisi wuxuu yidhi dadka aan walaalaha nahay waa sidaas uu hadalka u dhigay reer sudan waxbana iskuma haysana mana weerarayno colaadna uma hayno sidoo kalena etoobiya colaad uma hayno arrintaas waxaad umalaysaa xoogaa inuu wixii uu isku dayay inuu dejiyo maadaama uu baaqday prime ministerka etoobiya marka xisadaas waa xisad hadda bilaabatay waa xisad hataa aan soomaalidu ka maqnayn haddaan dhinaca soomaalida ka fiiriyo
sida la socota imaaraadku waxaa jira dekada Soomaaliyeed oo ay leeyihiin gacanta ay ku hayaan dekadahaas laftooda qatarteeda ayay leeyihiin waayo xisadahan way soo gelayaan gobolka xasanada waxa ku soo socda ilaahay ay naga jeediyay mataqaana aan caadi ahayn oo badankooda ay dabada ka riixayaan Israa'iil ay dabada ka riixayso maadaama ay xulufo la tahay wadamadan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta waa tahay laakiin dad badan waxay isweydiinayaan xilligan oo Turkiga uu bilaabay in uu Suudaan uu ka samaysto saldhig military in wadanka Masar na ay bilaabaan in Imaaraadku meeshii ay saldhiga ku lahaayeen Eritrea ay xilligan geeyaan ayaguna ciidamo kale maxaa labadaas ku keenay isla markiiba maxamed horta aan saxo Turkigu saldhig military ma sameyn taas waa hadal saxaafadda hadalka ugu yeesay madaxweynaha Turkigu markuu hadlayay oo Suudaan yimid wuxuu yiri meeshaan waxaan rabnaa sideedaba Suudaan waxay leedahay dekada Borsaiid dekadaas waa dekad weyn culays badan baa saaran wadanka Suudaan waa wadan aad iyo aad u weyn culays badan baa saaran marka wuxuu yiri culayskana waa ka qaadayna dekad kale aan suwaki ka sameynayna oo wadanku ka faa'iideysto aan ku wadaagno annaga meel gelinayna wixii ka soo baxana waa wadaagaynaa meeshina waxaan ka dhigaynaa suwakina waxaan ka dhigaynaa meel mataqaanaa tourism ah meel mataqaanaa loo tago fasaxyada la aado ayaan ka dhigaynaa buu yidhi balse sideedaba maxamedow wadamadan xulufoobay saa la socotaba waxaa jaraa'idka la yidhaahdo Middle East Monitor ee Maraykanka ka soo baxa iyo jaraa'id kale oo la yidhaahdo Basel Zeitung oo ka soo baxa Geneva ka soo baxa magaalada Basel ka soo baxa ee Switzerland labaduba waxay xaqiijiyeen in xiriir weyn oo mataqaanaa waliba xag military ah oo ka dhaxeeyo Israa'iil iyo Masaarida iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta marka ma doonayaan meeshaan inay soo dhex gasho Turkigu waxay doonayaan inay gobolka oo dhan iyagu xirtaan waana sababta keenaysa in mataqaanaa maxamedow Imaaraadka Carabtu inay dekadahan iyo ay tiraahdo annaga maamulayna annaga intaas soo kiraysanayna annaga lacag ku bixinayna annaga maal gelinayna arrintaas waxa weeye waa arrin siyaasadaysan weeye ma aha arrin dhaqaale kaliya geeska marka loo eego wadamadan iyo oo hadeertan la leeyahay inkasta oo Afrika hadda loo soo wada jeestay laakiin in wadamada Carabta ay hadda bilaabaan in wadamadan isla markiiba ay u noqdaan meesha ugu horeyso oo indhaha ay ku hayaan maxaa keenay xilligan oo soo kordhiyay maxamedow waa su'aal aad iyo aad u qiimo badanba waxa keenaya waxa weeye horta geeska Afrika iyo bariga Afrika oo dhanba khayraad fara badan baa ku jira petrol baa ku jira gas baa ku jira waa loo yahay taas waa midda koowaad oo waa loo kala tartamay oo loo kala hormaraya waxa jira sideeda xulufadan aan hadda ka soo hadlayay waxa gadaal ka fadhiya oo riixaya waa Maraykanka qaasatan Donald Trump oo markii uu yimid Saudi Arabia kadibna uga gudbay Tel Aviv uga gudbay kaarta iyo qorshe cusub oo la yimid weeye qorshahaas ayaa la rabaa in la meel mariyo ayadoo laga faa'iideysanayo wadamadii ku burburay gurbiga Carabta ay ka mid tahay mataqaanaa Syria iyo Iraq oo iyada laftooda jajabada burbursan iyo mataqaanaa wadamadii Liibiya iyo marka waxaa la doonayaa in lagaga faa'iideysto oo maadaama ay u gacan banaanayeen laakiin midba iyagana haysata waa wadanka Iran oo halka fadhiya oo ah mataqaanaa il qudax ku taagan ku ah iyaga wadanka laftiisa sidii dhabarka looga jabin lahaa la isku dayaa haddana ma wuu bilaabay cunaqabatayntii Maraykanka wuu ku bilaabay iyo pressureki wuu ku socdaa marka laga eego taasoo kale hadda sidaa sheegtay waxaa la aaminsan tahay in Maraykanka uu arrintan xiriir ku leeyahay dhinaca kale Maraykanka waxaa ka furan caqabado aad u badan ayaa ka socda barnaamij mudaharaadyo waaweyn ka socda waxaa wadamada Afrika ay ku eedeeyeen madaxweynaha Maraykanka iyo qaar badan oo kamid ah waliba madaxda caalamkaba in hadalla cusuriyeysan oo wax laga xumaado ah uu ku dhawaaqay oo uu ku aflagaadeeyay Haiti iyo wadamada Afrika arrintaasi halkay maraysaa hadda maxamedow runtii Donald Trump ma aha markii ugu horeeyay ee uu ku bariiqday xagga diblomaasiyadda waliba luqadda diblomaasiyadda horena waa loo ogaa Donald Trump inuu nin cusuriya yahay inuu yahay nin dadka takoorka fikirka takooriga ah dadka aaminsan iyo mataqaanaa jinsiyad sooca inuu yahay
waa arrin mataqaana hore loo ogaa arrintiina wuu ceshan kari waayo banaanka ayuu soo dhigay asagoo ku tilmaamay wadamada afrikaan inay yihiin mataqaana bulaacad ama masquul asagoo ku tilmaamay hadda saad u taqaanaan mata meel lagu saxaroodo ku tilmaamo uraysa meel uraysa asagoo ku tilmaamay runtii arrintaas aad iyo aad anigu laba dhinacba inaan arrintaa ka eegaan rabaa dhinacna hadalka uu yidhi iyo macnaha uu leeyahay dhinacna bal afrikaan anigu lafteedu dee dhinaca gobol qaaradda afrika kasoo jeedaya bal afrikaanku aragtida ay qabaan iyo waxaan sida ay yihiin haddaan dhinaca maraykanka ka eego horta waa fikir takoori ah waa fikir maraykanku weliba nimankan la yidhahdo white supremacist oo ah dadka aaminsan jinsiyadda caddaanka ah inay ka fiican tahay jinsiyadaha kale inay tahay jinsiyadda mataqaana xalaasha ah inay tahay fikirkaas waa fikirka Hitler ee Aryan race dadka mataqaana asalkooda Aryanka ka soo jeedo waana isla fikirka oo Donald Trump ku doodayo marka uu hadalka sidoo uu dhigay uu leeyahay meesha ay dad mataqaana meel uraysa ka yimaadaan soo aruursanayno ma Norway dadka soo kaxaysan laakiin waxa uu iska fogeeyay inuu yahay qof cunsuri ah oo waxa uu sheegay in qofka ugu dambeeya ee wax laga weydii karo dhinaca cunsuriyada inuu cunsuri yahay oo noqon karo Donald Trump maxamed waa runta waa waqti dambe very late ayuu yiri horta cusuri ma aad iyo aad u dambeeya markii ugu horreysay hadalka muu inkirin White House kana lagama inkirin su'aasha waa la weydiiyay xataa midda kale waxa cusuriyada u dheer Donald Trump oo caan ku yahay dadka mataqaana lagu og yahayba inuu nin beenaala yahay waxa la tiriyay saxaafaddu waxay soo tirisay inta jeer oo beenta sheegay 2600 iyadoo sii mareysay ugu dambeysay oo been sheegay hadallada uu sheego dhan ay been ahaayeen marka nin yaqaana been guurka inuu yahay waa loo og yahay balse arrintan waa arrin runa macnaha maxay tahay takoorkan wuxuu yahay fikir waa hore jiri jiray oo waagi dagaalkii labaad dagaalku ka bilowdo Hitler keenay oo haddana hadda soo laba kaclay oo ah in ninka cadi uu ka mudnaan leeyahay dadka kale in midda kale waxaa jira wax la yiraahdo in la abuuro basal Soomaalidu waxay taqaanaa dadka reer miyiga ah waxay raadiyaan awreera waa qoor si geela loogu daro oo ilmo qoor ay u dhalaan oo fiican oo mataqaanaa jizyad fiican loo abuuro tabtaas oo kale fikir ah ay dadka caddaanka qaarkood qabaan oo ah in loo baahan yahay in la abuuro dadka caddaanka ah la badiyo meesha ay dadka meesha uraysa ka yimid madowga ah jizyadaha liita xataa ay shaagu ku jiraan jizyadaha liita mataqaan la soo aruursan la dhinaca Afrika hadda ka eega hadaba horta waxaan is leeyahay hadalka Trump uu waxba ka jira meeshaan meel uraysa hadda sababta laga soo carareen oo loo soo cararay wadamada kale oo dadku badaha kuma baabaceen oo dooyaha aad aragtay bambirada maalin walba badda ku dhaxdhacayo arkayso dadku uma soo qaxeen meeshaan waxa masquul ka dhigay waxa meel uraysa ka dhigay waxa bulaacad ka dhigay waxa weeye maamulada ka dhisan Afrika madaxdoodu maalka dadka Afrikaanka ah oo ay soo saaraan jeebkay ku gurtaan markaas waliba ma haystaan oo wadanka business kuma haystaan wadamadan ay la yimaadaan Mareykanka ay geystaan waxay geeyeen Ingiriiska keensadaan Faransiiska keensadaan bangiyada adduunka ku soo shubtaan hadda meeshaan aan joogno iyo magaalada Manchester hadda tagto dhismayaasha ay ku leeyihiin wadamadaasi waa la yaabay lagu leeyahay madaxweyne hebel baale ama gabar u dhalay baale ama wiil uu mataqaana adeer u yahay baale musuqmaasuqaas maalka dalka Afrikaanka laga soo dhuuqayo banaanka loola soo cararayo ayaa horta meesha bulaacad ka dhigay waxa meel uu doon ka dhigi lahaa maalkaas oo dalka dib loo geliyo maalkaas oo aan la dhicin maalkaas oo mid jeebka aan ku dhicin meesha meel uu doon oo fiican oo hatta Donald Trump uu soo cararo ayay ka dhigeen hal soo ogow Donald Trump eheladiisii musqul iyaga laftooda ka carareen halkaan marbay musqul ahayd Yurub tan joogno oo loo cararay America markaas wuxuu ilaawo in awowgi oo musqusha ka cararay taas buu hilmaansan yahay maanta uu dad masaakiina oo gacanta ku jira oo 100 Soomaali ayaa xabsi ku jira hadda oo la rabo in marka musqusha dib loogu celiyo la rabo marka taas way tooy loo siyaa asaga in dhagaa loogu shubay tahay Maxamed waa tahay waqtigu aad noo haya waxyaabaha kale Trump oo aad ka uga hadlayay isla markaana warbaahinta caalamkuna ay si weyn uga hadlayaan waxa kamid ah xiriirkii ka dhaxeeyay Pakistan iyo wadanka Mareykanka oo meesha ugu xumeed gaaray taas waa run Maxamedow arrinta Pakistan iyo Mareykanka ay isku hayaan waxa weeye Donald Trump maalmood uu hadlay hadalkiisa wuxuu yiri Pakistan waxay naga qaadatay 15 sano ugu dambeeyay $33 bilyan milyan ma bilyan weey ayay naga qaadatay oo siino macaawino military iyo wax walba u siino ayagana been bay naga iibinayeen been iyo
wax aan jirin iyo khiyaano iyagoo weliba guryahooda ku hayay argagixisadii aan raadinaynay balse arrinta laba dariiq in laga eegay u baahanta waxaana dadku leeyihiin mataqaana arrimahan u dhul daloola siyaasadda caalamka waxay leeyihiin arrintan bakistan waxaa ka dambeeya waddanka sacuudi arabiya maadaama bakistan ay kasii fogaanayso ayay maraykanka waxay ku saareen pressure inuu lacagta ka joojiyo si ay bakistan ugu qasbanaato inay dib u sacuudi arabiya ugu soo noqoto ay dabeetana sacuudiyiintu u isticmaalaan dagaaladan bariga afrika mataqaana iyo waqooyiga afrika ka socda ay dib ugu isticmaalaan ciidamadooda iyo mataqaanaa qalabkooda ay dib u isticmaalaan horta taas mid bay waa midda kale bakistan lafteedu waxay samaysay xogtii ay siin jirta maraykanka way ka joojisay waxaa jira dariiqyada loo maro waddanka afghanistan ciidamada nato ciidamada maraykanku ay degan yihiin dariiqa loo maro waa bakistan la dhex maraa maanta hadday dariiqaas bakistan xirtana sheekada afghanistan oo dhan way qarxaysaa wayna istaagaysaa maraykankuna awood uma helayo inuu taakuleeyo ciidamadiisa ka jooga afghanistan taas weeye tan muhiimadda leh ee loo baahanya in la fahmo in ay arrintaanu arrin siyaasadeed oo isku xiran maxamedow siyaasaddu way iswada waafaqaysaa markaad eegto waxa bariga afrika lagu hayo markaad eegto waxa bariga dhexe lagu hayo markaad eegto waxa bariga fog ee bakistan iyo iiraan lagu hayo intuba way iswaafaqayaan waxaa kuu sheegay inay wax isla yihiin oo qorshe degan oo CIA-da Mossadka waxaana isla ogyihiin ay tahay maxamed aad ayaan kugu mahad celinayaa injineer daawadayaal barnaamijkii bandhiga oo maanta aan uga hadlaynay arrimaha Soomaaliya kuwa caalamka injineer Axmed Abdidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee waddanka UK oo noo falanqeynayay inta ayaan kusoo gabagabeynaya Cabdiraxmaan Soomaali ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo Maxamed Cabdisalaam oo idin la socodsiinay inta barnaamijkan barnaamij xigoo kulmi doono dhamaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh